kan aan la shaqeeyay aan kala shaqeeyay arrintan mar hore ayaan ay awoodeen inaan kala guurno in gabadhayda meesha ay marayso iyo dacwadeeda aan ogaado ayaa sabab u noqonaysa inaan la shaqeeyo horeyaan idinku sheegay inaan ku soo celceliyey muhiim maaha in aan yaasiin iyo taliyaha iyo muxuu ahay dadka kale ee saraakiisha aan la shaqeeyoon iraahdo war xaggay maraysaa intay soo taagan tahay intay xaaladda ay maray intay oo aanan hadda haddii ba xataa tuhunka hadda oo soo weynaaday oo iyaga in la tuhmaya muxuu ahay hadday jirta xataa inaad ismoogeysiiso sidii aad muxuu ahay gabadhaada aad ku heli leed ama xuquuqda kaa maqan aad ku heli leed waa muhiim baada ninba si u dadayaa aniga sidaan u dadayay sidaas ay noqotay xanuun badanna inay igu hayso gabadha walaashay ma aha wax kale uma adeerkeed baan nahay jeesaw bisaan ku aanaan kula leexsanahay inta kale jeesaw odayga ku xigo waa isugu nimaadnaa walaalkay yaa dhale gabadhaas marka ma aha inaan ignoreynay laakiin tilaabada aad qaadaysaa markii ay arrinta noocan ay noqoto oo cariir ay ka gasho tilaabada aad qaadaysaa ayaa u baahan mid ka fiirsasho leh oo mid muxuu ahay irdihii gabadha ay ku maqneed aan ay kaa soo xirmaynin xogaal aad noqon karin muxuu ahay sida baadida loo raadinayo xataa inay iyaga ku maqan tahay inay iyaga ku maqneen sida loo raadinayo ayaad xataa ka cabir qaadan kartaa marka taas waa tu aniga muxuu ahay qaabka aan wax u raadiyo igula muuqatay waaye ciddii dibsatayna iyaday u taallaa cali samatar yaad qancinay ayuu yiri asagana waa lamid su-aashaas iyadana taasay lamid tahay anigu waxaan ummadda soomaaliyeed ayaan xildhibaankooda ahay jufahayaan beelan ka imid taas oo gabadha ay ka dhalatay ayaa xaq iigu leh inaan qanciyo meesha ay wax marayaan aan u sheego waana u sheegi jiray waana u sheegaya haddana inta kasii dhimno waa u sheegi doonaa insha allah bakayla 4 saac maxaa iigu soo celi ninka oo saddexaad bakayla 4 saac maxaad ka hadashay qoraalka iga degay maxamed royal waxaan filayaa inuu ku weydiiyey maxaa laga filan karaa xildhibaan waxaan ku weydiiyey hadda 40 saac oo taruur u qabtay taliyaha nabadgelyada fahamka 40 saac tan labaadna adigu haddeertaan gabadha mashaariicda ku tusan tahay mise nabadgelyada aad weli ku tusan tahay waan ka jawaabay laakiin waa kugu celinaya 4 saac loo qabtay ra'iisul wasaaraha oo u qabtay taliyaha ciidamada ra'iisul wasaaraha muwaadin waajibkiisu guti waaye arrinta meeshii la rabay hadday taagantahay waxa uu samayn doono ra'iisul wasaaraha la weydiinaya anigase waxaan rajaynayaa inaan cadaalad helno haddaan nahay dadkii famiilkii gabadha haddaan nahay xildhibaanadoodii haddaan nahay ummadda soomaaliyeed ikraan ay intay iyadoo qiiraysay dibadda wax kusoo baratay kusoo noqotay dalkeeda ayadoo aan ognahay ay dhalinyartii iyada la midka ahayd ay tahriibayaan oo ay jidadka ku ba'ayaan iyadoo muwaadinimo jacayl iyo dal jacayl ay u soo noqotay iyadoo weliba UK tagtay ay u soo noqotay marka waxaan aan sugnaa waxa weeye oo aan ra'iisul wasaaraha ka sugaynaa inaan cadaalad helna taliyahana waxaan ka rajaynayaa isaga ruuxiisu si cadaalad ah oo hufnaan leh oo wanaag leh inuu warbixinta taliyaha uu ka codsaday isugu soo gudbiyaa ikraanne adiga hadda yaa ku tuusan tahay ikraan hadda ma waxaad tuumaysaa weli nabadgelyada waa ku soo anigu arrinta waa sharaxay ikraan 3 qaanadood oo aan ku tuumayo waa iga soo xirmeen hadda maanta waxa aan ku tuumayaa waxa weeye hay'addii ay ka tirsaneed inay ku dhex maqantay waa mahadsan tahay xildhibaane hadalka cali samatar haddii aan halkaasii raaco waxa ku jirta sidaad muddo kordhinta ugu doobi jirtay maxaad arrinta ikraan ood adeer u tahay ood og tahay inay dulmane tahay ugu badheedhi weyday ood uga hadli weyday si adag oo markaa loo malayn karo inaad daacad ka tahay arrinta ikraan waa arrin u baahan in la farsoo dhiisuuliyo oo aayar tartiib la qaadaa dhigo waayo qof noolaa iga maqan haddii si ingiriisiifnimaha
oo dagaal leh aan ku wajaho waxaaba suurtagal leh in lagu xanaaqo hadday nooshahay nafta ay ku wayso tan kale hadday shabaab qabsadeen oo ikraan ay shabaab haysato inay hay'ad nabad sugidda gaba ka tirsanaa iga maqalay oo shabaabkii aan iyadoo inkastoo caasho liima yiraahda ikraam liima yiraahda caashaa lii yiraahda haddii aan iraahda gabadh nabad sugidda oo ikraam lii yiraahda iga maqalay aan iraahda ilaa haddana ay khatar ku sii geli karto marka wax badan oo muxuu ahay security-ga sababaas u yahay ayaan ilaalinaya وهاجاج واحد لباني وكسي سعوني شيخ مصطفى سؤاله قباها كتجيها وقروا سارية وجيدة شيخ مصطفى وهاجاج وما سنت الروبلة إدريس يصفيها يا شيخ مصطفى المركز اسكو حجينيا إدريس وما سنت بكالة وحار ربع داير أميجي سهرتا إنان سؤال ويديو هرتا نيو هو ade in badan siyaasadda waa ku jirtaa waanu ku naqaanaa si fiicanna waa kula soconaa waxaa moodaa in marba marka ka dambeysa xoogaa saameyntaadii golaha fulinta ay sii hoos usii dhacayso marka maalin dhoweed waxaa dhahday adoo oo xadaaraysan ayaa waxaa tiri madaxweynaha isagaan impeachment ka keenayna haddii uu 2 sano ka laabto hortaada ayuu soo fariistay 2 sanana wuu ka laabtay hadda kiiskan oo ahayd inaad aamusto ama si waaqica uga hadasho muuqaala soo duubto waxaa tiri aniga meesha tagay gaariga aniga la soo tusay nisaha lagu kalsoonaado kan waa tiri adigii oo gabadhana adeer u ah oo aan laga filin hadda dadka inta badan ma oga laakiin aniga hadda inta waa ka sheegaa waxaa ogaatay in caawa maqribkii uu ra'iisul wasaaraha hadli doono ka horna arrin oo dood badan ay socotay oo villada u dhaxaysay in xilka laga qaadayo taliyaha nisa iyo in xoogaa loo kaadiyo dood badan kadib ra'iisul wasaaraha waa isqaban waay waa soo hadlay laakiin adiga waa ka faa'iideysatay intuusan soo hadlin ka hor waxaa tiri bal tvda inta u yarta waxaa dhahday bal kaalaya oo arrintan yaa lagu ceeyoobin haddana marka maamadiina waa tii hadasho ku tiri warjeysow yaa uga ashtikooda oo yaa iga qabta marka niyahow ma kuu muuqataa in mar kastaba offsetkaaga badan yahay damoor offsetkaaga u batana waxa waaye damoor oo saameyntaada siyaasadda ay hoos u dhacaysa waaye marka tan horta waa tii ugu darneed oo hadda aad ku jirto oo dhinacna aad ka taagan tahay hadda ayaa waxaa leedahay markuu ra'iisul wasaaraha dhahay anaga maxaan ku dhahaa 48 saac taliyihii dhan oo nisa oo aan naqaano Fahad Yaasin inuu yahay si kala hadaan u dhaho milkiilaha dowladda oo ninka farta wax kasta ku maamulaya yahay ayaa 48 saac si public ah loogu qabtay adigii marka dhinac ayaa hadda arrintan ka taagan tahay maamadan waxay kaashanay waa shacabka Soomaaliyeed iyo ra'iisul wasaare Roble oo adiga waxay ku dhahday gabar aan dhalay haga daba hadlin marka niyahu ma kula fiican tahay in markasta sidan aad offset ugu gasho next time to marka dambe soo kulma fiicna in inta aadan hadal oran oo aad og tahay inay gadaal dambe ku xumaanayso haddana mar kale aadan soo fariisan soo xoogaa ma qurux badna inaad offsetkan faraha badan aad iska dayso maasan tahay mahadsanid Idris Sheikh Mustafa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيرت وإذن سلام يا جارهان حلبان جاسو ورنتي شخص قيمة بدن آد بسلام يا سلامت حلبان كدب وحرب إن الله بقى عن تلمامو أنا سوكو بيمدو كواد هورتا مد ظنيجا لدنين أيو أما لقاش كينو أيو أنا بتسجد يعدي لقاش كيو وحرب إن dadku cadeeyay san dambi ahayn waa ilaahay wuxuu diiday danigo dhan maahan inna ba'da dani ithmin ilaahay dahay daniga qayb kamida ayaa dambi ah danigo dhan maahan hadii raad lahaayo waayo dambi oo dhan in la helo marka hore wuxuu u baahan yahay in shaki yimaado shaki markii la yimaado kadib wuxuu u baahan yahay xaqiijin marka hadda stage-ki shakiga ah oo waliba sii weyn oo muuqda ayaa jiro marka xaqiijintii u baa dhiman taas meesha marka uga gudbo gabadha aabaheed oo aan la kulmay wuxuu ii sheegay in runtii intay gabadhiisa ka maqnayd uu dadaalo badan sameeyay dad badan uu la xiriiray laamo badan oo dawladda uu la xiriiray laakiin mar walba la isku dhiibaayay xildhibaanka arrintaas ma la socdaa waa su'aasha ugu dambaysa waxay tahay aan weydiinaa muhiimkana ii ah aan u malaynaya dadka Soomaaliyeed inay muhiim u tahay markay arrintan dhacday kadib ilaa shalay waxay bilowday in saakiina oo aan runtii arrintan shaqo ku lahayn loo afduubtay marka xildhibaanka ma la xiriiray beledweyne iyo hiiraan dhulkii uu ka soo jeeday beesha in dadkaas masaakiinta shaqo aan ku lahayn aan loo dhibaatayn
si iyagana dhibaato aysan shaqo ku lahayn loo geysan labo kiiska gabadha laftirkeeda si uusan arrintan aysan u qasin waayo hadda soomaalida dhan baa ka wada danqatay si aysan arrin beelad u noqon waa mahadsantihiin waana ka xumaadaan ku dheeraaday guulaysta waa hagaag safiyo inta safiyo gudagelin waxaan raacsan lahaa sheekh mustafa iyo sheekh cabdirasaaq sugule iyo sheekh cabdisamed oo aan soo qaban doonay waa culimada daaciyayaasha waaweyn dabcan aan ku tilmaami karo club housena shaqo fiican ka qabtay sidoo kale sheekh mustafa weliba gabadha adeeru u yahay ninka la yidhaha xildhibaan daahir amin jesona si wacan bay isku garanayaan wax badan uuna ka dhiidiyey wax badan uu ku aadan arrinta igraan tahliilna wuu ka hadlay sidoo kale waxaan rabay idris altesa su-aasha weydiiyey xildhibaanka marar badan buu dhahay iyo marar soo socda horta wixii basti ah iyo wixii future ah halkan diiradda kuma saareen idrisow waxay jeclaan laheen xildhibaanka wixii hadda arrinta igraan oo offset oo hadduu galana waa ku canaanan karnaa laakiin ما way ku jirtaa laakiin fiiri offsetka tan ikraane ku jirtaaba waxa kugu dhacay tan ikraane ku jirtaa taas ina ku suntay laakiin marar badan offset maya ee hadda fiiri macnaha aniga waxaan ku simay dhageysay aniga waxaan ku simay idris iyo boss idris waaya nimale maadaama muqaas wadaba tan way ku jirtaa marka next time aan ka hadlaa laakiin way ku jirtaa offsetka ay waaya idris aad ma saaxiibkay qaaligana waa taa waan ku jeclahay waaya cabdi safiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته codka iga xiran raalli ahaada wax yar xildhibaanka waxaan weydiinaa wadada aniga gabadha laga qaadan aqaanaa oon deganaan jiray wadadaas gaariga meesha istaagay ma aha gaari baarkiman gaariga wadada bartamaheedu yaalaa wadada saas baarfiyaada kasoo baxaysaa mid waxay u leexanaysaa isbartiibada mid beexaaniya u leexane mid hoose u baxay isbitaal asreetiyay galaysaa barta gaariga oo taagan yahay waa wadada bartamaheedii waaye gaarigaasaana gabadha lagu qaaday gaari kale meeshaas ma geli karo afarta wado oo soo gala wadadaas oo hadda idiin sheegay afartaba ciidanaa taagan lama maro inkastoo ani 12 sano aan moogahay lama maro wadadaas gaari aan gaarigaas ahayna ma geli karo oo nabad sugidda meesha dhan waxaa ku taala nabad sugidda guriga habar khadiija ku yaallo oo nabad sugidda u hadeertaan iyo makareeshinkii hore Soomaaliya meeshaas ku ooli jiray xildhibaanka marka ninka yiri gaarigayga meesha ku baarkin ma ahayn meeshaas waana gaarigii gabadha lagu qaaday arintaasan weydiinayaa xildhibaanka siduu ku ogaaday inuu gaariga meesha ku baarkinaa baarkin dhanna kuma yaalla agaas waa mahadsantahay maam safiya waa mahadsantihiin idris offsetkaagaa badan oo yir waa suurtagal waaye in offsetkayga uu badan yahay idrisow laakiin anigu waxaan isleeyahay najaxaaga ayaa badan najaxaaga markaan leeyahay siyaasadda waa lagu qaangaaraa waxaan isleeyahay siyaasadda ayaad ku qaangaadhay si waxaad iiga baratiyo hore oo ahay in muxuu ahay aan qaaqla iska ahaadane dee waa waxaan ka soo koriyay noqotay arrinta ah waxaa tiri farmaajo haddii muxuu ahay ka noqdo mooshidan ka keenaynaa ama impeachmentan ka keenaynaa farmaajo kama noqonin in kastoo su-aal aan ka jawaabo inay ahayn ayna habbooneen kama uusan noqonin codsi uu baarlamaanka keensada baarlamaanka waa almiin waxa ka noqday jahayntii doorashada mana ahayn adiga hadda sidaad u fahantay ma aha siyaasaddana fahmay u baahan tahay ma aha sidaad u fahantay 2 sano oo waqti kordhina waxay ahayd waqti doorasho hal qof iyo hal cod lagu qabto ayay ahayd tan maanta taaganne iyo taasna hadda waa adiga ruuxaadaan aan markhaati kaaga dhiganayo shacabka Soomaaliyeed dhibka taagan maanta doorashadaas ku saabsan marka anigu waxaan isleeyahay hobsetkaaga ma badnayn najaxaaga badan siyaasadaad ku qaangaadhiyaan isleeyahay adiga laakiin aragtidaadu waxay kula tahay inaa hobsetkayga uu badan yahay marka suurtagal waaye inaad aragtidaada qofka aragtidiisa laguma naco aragtidaada waa kuugu nicmaayo walaalkay waana kusoo dhaweynaya sheekh mustafa waa runtaa dictor tahliil iyo taliyaha muxuu ahay hay-adda nabad sugidda 2 ruux oo soo wada shaqeeyay oo dirisna ahaan jiray muxuu ahay dhulkaas mar aska shaqeynayay dictorka oo NFD iyo inta u dhaxaysa gado mar aska shaqeynayay ayay saaxiibo ahaayeen
dad is yaqaano oo si fiican u sii yaqaano waaye inay sheekaysteen suurtagal waaye wax badan muxuu ahaay aan aniga awal aaminsanayn waa iga qanciyey doctorka waxa kale oo doctorka aad u diidan yahay gabadhiisu madaxeeda in dad loo dhibaateeyo waa ku mahadsan yahay doctor Taliil waana ku amaanayaa arrintaas ma la xiriirtay arrinta beledweyne ee dhibaatada ka dhacday lama xiriirtay waa la xiriiray maantadana dad u diray odayaal dhaqameed oo xamar ku sugnaa ayaan muxuu ahaay oo ilaa 8 qof gaaray ayaan u dirnay si problemkaas jira ay iiga soo xalliyaan taas waa doctor Mustaf bayday Safiyo wadada oo gabadha muxuu ahaa gabadha meesha ay degan tahay guriga ay degan tahay gabadha ma aha meesha oo hadda baabuurkan aad sheegaysid wadada aad tilmaamaysid wadadaas ma aha gabadha waxay degan tahay ninkii yaqaana markii aad u socotid dhinaca hotelkan gaange uu leeyahay oo Dombir Mugi kan kale magaciisa muxuu ahaa yaa ii sixi kara yaa laba hotel waaye doctor gangi hotelkiis ii sheega oo labaad kan oo Dombir Mugi kan kale oo dusha ka maraya Habar Khadiij wallahi dalka maran ugu dambeysay dhalinyarada haysa global biya ma city palace global jidka ka horbaxayo oo toos aadayo beexaan cageeda aadayo jidkaasi waa gabadha ay meesha ay degan tahay oo laga qaadiyo gabadha ayada soo celin ayada ka jawaabayso ayada soo saaray marka Safiyo soo dhaw Safiyo hotelka gang waa taqaana oo labaad hotel kale ta ku yaalo global doomin xasan shibisa iskale global ma global wadada ka baxayso toosko guriga sheeqasha ما ست بلاس واوغا ست بياس هذا روي بلاس لو بحيما دكتور جانجي الهوتيل كيسا بار فياد كسوسكو ايو كويلا gabadha meesha ay deganeed meesha waa dad badan oo waxaan arkay gabadha meel xiran ay degan tahay dad baan arkay gabadha hooyadeeda hadda degan guriga oo gabadha ay degan tahay ay deganeed in labada habeen ay ka guurtay moog laakiin hooyadeeda degan meel xiranna ma aha anigu gurigaas waa tagay waana soo arkay iyadoo liigu walaacay gabadha meel xiran ay degan tahay ma xiran laakiin jidka la maraayo oo la soo maraayo ayaa xiran jidka la soo maraayo markii lagu soo deynayo waayada microphone lagu soo deeya ama markii qof kala cad wacata xataa xildhibaano markay maraayeen marka wadadaas ayay soo martay ay dadka leeyihiin allahu allah ana ma xaqiijin karo adigan ma xaqiijin kartid laakiin muxuu baaritaanka iyo waxa la samaynayo kaamarooyin inaan ka war dhowrno aan isku dayno yaa mahadsantahay intaas waa aragtidaydi iyo muxuu garashadaydi waa mahadsantahay xildhibaane waxaa kaloo rabaa asxaabta halkan saaran meega iska soo garaacani waa kuu imaanay nidaam aan ku soconnaa qofkaas soo horeeya laga yaabaa inaad bursi ku samayso su'aashaada soo koob xildhibaankana waqtiga oo inahaaya dartiis muddo saacad iyo bar ayuu ku jiraa waxaan jeclaan lahaa jawaabaha inta nuxur kale inuu noo soo koobo Soomaali ma wada qancin karno waa ma wada qancin kartid xildhibaan marka waxaan rabaa inay 3 qofood oo kale soo koobaan jawaabtan xildhibaanka noo soo koobo inta hartay hadda inta saaran panelkana aan dabcan ku soo gabagabeeyno barnaamijkeena marka waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo Maxamed Bashiir iyo Yusuf Maxamed hadduu joogo Bashiir iyo Yusuf واي محمد نما جوجو محمد كانيga miya mise waa maxamed kale maxamed kor saaran sida hadda abdid hada refresh leh sida loo kala horeeya arkaysa waa xildhibaan adaar ninka ku maxamed farax marka ma joogaan filayaa oo iska geeyay laakiin booso maxamed muqtaar mar hore soo fuulay kor u saaray qofka gacanta ugu dhacda u maleynaa hoosta loo dejiyay marka maxamed muqtaar hadaba dadka ugu horeeyay uu yahay jaaniska la siyaa ron waa uu joogaa maxamed muqtaar hadduu joogo ha lagu bilaabo su'aasha xildhibaan amiin dhib ma labo xildhibaan amiin jooso waxaan rabaa horta 2 su'aalood oo directly inaan ku weydiiyo waxaad moodaa energy-ga as xildhibaan Soomaaliyeed marka aad dadka aad siyaasadooda aad dhaliishan tahay energy-ga aad ku hadasho oo aad ku taageerto ama aad pressure-ka ku saarto
inaadan u isticmaalin markii nidaamka hadda jira oo waxyaabo badan ama uu khaldo ama uu si kale wax u dhigo su-aasha labaad oo aan raba inaan ku weydiiyo waxay tahay xildhibaan amiin jeesow gabadha taleefona soo wacay oo qofka Soomaaliya jooga compound asoo ku jira guriga kama baxo taleefonkii soo wacay waxa la sheegaa in hormood la weydiiyay ama shakhsiya ama dadka oo shaqada kule in nambaradii la diiday in la soo saaro marka baaritaanka la sameeyay ama adiga maadaama aad sheegtay inaad taleefanada u geysay safaaradda maxaa lahdaa Mareykanka ama aad geysay meelaha ku shaqada leh haday aad noo sheegaysay ma waxaa la garan waayay taleefankii ugu dambeeyay oo gabadha soo wacay oo guriga ka soo saaray qofka iska leh haddii la gartay ama la garan waayay labadaba sababta ay u qaadatay muddo 2 bilood ah in barashar lagu saaro inta la eg qof adiga aad xildhibaan u tahay oo baarlamaanka Soomaaliya aad ku matasho soo meeshaas kama muuqato in adinka xildhibaanadiina dadka aad sheegtaan inaad matashaan aad dayacdeen oo aad markii barasharku dawladda oo kor aad dib u soo hadashaan oo aad qaylisaan cidaad markaad aad rabtaan inaad saxdaan waa mahadsantiin maxamed qura waa yahay bashiir hay aada u mahadsantiin dhammaantiin waan salaamayaa xildhibaana soo dhow aada u mahadsantahay waqtigaana se waa kaaga mahad celinaynaa ilaa 2 iyo 3 su'aal inaan weydiin karaan u malaynayaa dad kalena su'aalo waa qabaan bashiiro allah ku shukr su-aasha isleeda alle ninkaan nin kulul waaye su-aasha isleeda alle waa karkari karaa waa weydiin kartaa laakiin bal hal su'aal kusoo koob اوكي لبان كدغنا wax badan ila 4 su'aalaad ay qornay laakiin labaan kusoo koob kala wana kala dadka kala ixtiraameena 10 su'aal xaq u leedahay laakiin kuwa kala ixtiraameena kuwa kala thank you very much aada u mahadsantahay okay xildhibaan soo dhawow horay ugama aad hadda maanta ka hor sida muxuu ahaay aan ognahay arintan 7 iyo dhowrka bari si maraysa maanta baad clip yaro 2 daqiiqo iyo wax la mid ah aad soo hadashay sida qof iga horeeyay aan ka maqlayna yaani xog bad ku leeyso meelaha wad ka dhadhaweyd welina waxa warkaaga ka muuqda in halkii lagu tirinayay aad weli ku xiran tahay oo ahayd fila Soomaaliya xaaladdu sida hadda taa waa ognahay ra'iisul wasaarihi maanta uu hadlay ninkii full power-ka ahaa ayuuna saacado u qabtay inuu yaani warcad keeno tilaabo cadna oo inuu qaadi doono sheegay halka marka ay taagan tahay ma waxay ahayd inaad garab siiso barashar saarista la saarayo shakhsiga la tuhunsan yahay inay ku maqan tahay gabadhaadii inaad ka qayb qaadato mase waxay ahayd inaad weli go'doon ku ahaato halkii laga soo guuray muxuu ahaayay Fahad iyo muxuu ahaayay farmaajo hadii aan magacaababa oo go'doon ku jira inaad weli go'doon la sii ahaato halkii ay ahayd inaad dadkaaga matasho oo gabadha aad sheegtay inay idin kala duwan tahay oo kaliya magacaaga aad xildhibaanka lagu yaqaan xildhibaan daahir amiin jeeso lagu yaqaan inta kale idin kala duwan tahay ee odaga afraad isugu imaanaysaan inaad garab siiso oo aad garab istaagto cidda u dagaalamaysa ee xuquuqdeeda raadinaysa barashar kala saaraysa shakhsiga lagu toonsan yahay soo dhaw xildhibaane su'aalo badan baa qaba laakiin hal xabaa la iga soo koobay ma laga yaabaa arrintan inay kugu kalafto baqatin shakhsiyana oo adna waxaad ka baqaysaa sida Iiraan kale in lagu dafo soo dhaw waaya bashiir waaya waxaa kaloo raacsan jeclaan lahaa inuu raacsado sheekh cabdisamed oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed waliba hadda waqtigiisa inta ugu badan teknolojiyada casriga ah dhalinyarada aniga aan ka mid ahay wax wanaaga kula wadaaga culimada kala mid yahay sheekh cabdisamed ma raacsaneed su'aal qofka saddexaad aan ka dhig haddii aad joogto sheekh cabdisamed waaya waa ka gudbayaa haye refresh haddaan dhaho cabdi xildoonaan ku xiga عبد الحمدون هذا هو تيم كأوسا كنت جرتها ودي جيدا عبد الحمدون ما جبتها أتغادر أنا كوريش وايه عبد ما جوجو الرعصة صاحب سؤال سيد هذا الرعصة بشير يوسف أو أسمع كل معنا أوكي وعم في لي أنا كحيل عبد الغادي سمع هاي يوسف بشير لما جوجو الرعصة يوسف حلوان وانكم سلامي waxaad moodaa su'aaluhu inay badan yihiin su'aalo lagu dhaliilayo qaabkii aad uga falcelisay kiiska gabadha iyo tuunka ku xiran mar haddii aad caawa dhageysatay su'aalihii lagu weydiiyey oo dhammaantood muujinaya macnaha inaad aad gabtay waajibaadkaagii 1 xildhibaannimo 2 ehelnimo ma tahay xilligii ugu munaasabsanaa ee aad siyaasadda ka degi lahayd waad mahadsantahay
حلوان سدح سؤال واحد قرأت في ليها إلى aad شن iyo قف aad كليان نهار طبعا شن قف كليان نهار تصدق يا صاحب اللي قفوت وايه حلوان كسر تاجر hagaag aad mahadsantihiin ninka la yiraahdo mukhtaar horta gidigii waxaad ka simantihiin waxa la yiraahdaa negative oo dowladda ah dowladda markii laga hadlaayo idinkaa iskale gidigiin taas jamacaan idinku sheegaya idinkaa iskale dowladda idinkaana lahaan doono farmaajona qaadan maayo fahna la tegi ma ra-iisul wasaarena la tegi ma siyaasadda qori uu shadiib waaye sida madaxweyne xasanaa joogo maanta farmaajaa joogo biri mid kalaa imaan kara marka intaad negativeka iska dhaaftiin waxaa fiicnaan lahayd si logic ah oo waxa lahaanshaheeda aad leedihiin u eg inaad i weydiisiin mukhtaar dowladda muxuu yiri ma weerartid san u weeraraya waaba dowladdeennii dowladdeennii san u weeraraya waaba dowladdeennii madaxweyne xasan sheekh waa lasoo shaqeeyey one day aniga isaga iskuma dhicin kana iskuma dhacayni insha allah oo hadda joogo marka cid aan weeraraya ma laha telefoonada waa ku bilaabay in hormuud ay noo diiday inay noo soo bixisa qoolkii ugu dambeeyey ee gabadhaas soo wacay way noo diideen xataa warqadaa loo qoray laakiin ma aqaana wixii muxuu ahay koosgarayn kara waa waxa u baahan baaritaan sababta ay u diideen iyaga ruuxooda baaritaan oo xaqa oo dhab ah in la sameeyo oo gabadhan kiiskeeda ku saabsan bashiir sidoo kale maanta fila soomaaliya aad ku go'doosan tahay weri fila soomaaliya soo dowladeena ku jirto ummadda soomaaliyeed markuu ay leedahay ninka la yidhaha bashiir wuxuu yiri fila soomaaliya aad ku go'doonsan tahay ma sidaasaad sii ahaanaysaa walaalaha fila soomaaliya waa meeshii nagala xukumay waa meeshii dalkeena waa meeshii ummadda soomaaliyeed xubka ay wada leedahay ay tahay meel lagu go'doono maaha meel oo waxaa waaye u baahan qof kasta oo soomaaliyeed isqadiri qof kasta oo soomaaliyeed isqadiri haddii kale waxay noqonaysaa nayamtumankii markii maxamsiga barrabaxay inaan kala garanayo waxaa ka qaranayo burburin hadda anigu intaas un baan codkayga sidaas ayaan kugula hadlooya haddii aan la maqlaynin hadda xaggiina in sidaas suurtagal ah anigu waan idii maqlayay waana qoranay su-aalahayda marka waxaan rabaa marka baad iyo farmaajo ma go'doonsana anigana lama go'doomaay waa nima mas-uuliyiin qof walbaba xilka waktigaas ay ugu ixtiraamo ayaa fiican waxaad ugu guwaabinaysa waxaa weeye marka dowlad jacaylka ilaahayga subxaana watacaalaha ayaa aan u rajaynaya ummadda soomaaliyeed inay ku baraarugaan qurbaha haddaad joogtid waad aragtay qashii dadka shacabka annagana hadda waxaan rabnaa madaxdeenii dalka inaan garaafayno aan ka daba jeetan marka ma fiican arrintaas iyada ma soo dhaweynayo ma mujal waxaan rabaa yuusuf jawaabdii ugu dambeysay siyaasadda ka baxaysa waxaa kala gobol eg waaye siyaasadda ka baxaysa waayo kama baxayo waa musharaxa waa kusii jira dadkaygu ay jecel yihiin haday jeclaan ma dooran doonaan insha allah haddii la tartamaya isguulaystana waan soo dhaweynaya marka waxaan rajayn lahaa waxyaabaha aan ka hadlayni oo ku saabsan ikraan inay su-aalaha ay ku koobnaadaan oo waxyaabaha shaksiga liska dhaaf insha allah oo si ay waraysigeena iyo idinkana aan u kala faa'iidaysano maaha idinka kale waxa faa'iidaysanaya aniga ruuxaygu ogaada su-aalihiina waxaan ku ogaanayaa dhaliilahaygan oon ku saxan lahay aan ku ogaanaya ma aha in lii dhaliilo waxay sixaysaa qaldaadkayga marka waa idiin soo dhaweynayaa inaad i dhaliishiin laakiin waxaad yeelaysiin
dowlad jacayl ha idinka muuqato dhexdhexaad u ekaado dadka hadda saddexda qof ugu dambeeyey waxaad moodaa hadal oo farmaajo naceeb iyo fahad naceeb iyo wax noocaas ra-iisul wasaaraha 24 saac anaa ka codsaday oo iri ra-iisul wasaarehu kiiska dhegaysta warkii maanta soo duubay dhegaysta saacadda la soo geliyey iyo waxoo dhan 3 saac saakay ayaan saxaafadda isugu yeeray oo aan leeyahay madaxweynuhu ra-iisul wasaarehu waa in arrintan wax ka soo aad soo faragelisiin marka in aad shakhsiga uu ka dhigo markuu ra-iisul wasaaraha hadlay kadib in aniga aan hadlay baa qalad waaye wax sax ma wixii qaladana aan iska saxno anigana isaxa haddii aan qaldanahay insha allah